insha Allah waxaan rajeynayaa kooxdeeda nasiib waxaan u rajeynayaa safar oo wax isoo galay oo banaanka ah gobolkayga aadaya cilad awgeed oo hooyaday aad u xanuunsan oo sariir saaran waxaan kooxdeeda u rajeynayaa iyo hooyadeeda in caafimaad taam inuu Ilaahay siiyo kooxdeeda waxaan u rajeynayaa nasiib waxaan inay helaan dhabato kubadda cagta waa la jaanqaad iyo la socodka markaas waxa socda geesiga kan dadaala kan xadgudba kan dabacsan iyo mid walba wuxuu helaa abaalmarinta wuxuu falay waxaana intaasoo dhan muraayad u ah saxaafadda muuqaalkan yar ee aan maanta rab inaan idinla wadaago waxaan rabaa inaan uga sheekeeyo geesi aan loo heesin mudnaa in lagu hadal haayo baraha bulshada si loogu dhiirigeliyo ficilka quruxda badan oo uu ka sameeyey garoomada kubadda cagta loogana sheekeeyo masraxyada looga doodo ciyaaraha kubadda cagta waxay leedahay xushmadeeda balse waxa uu sameeyey daafaca dhexe ee kooxda LLBB Genyo Mahad Ibrahim Hilowle waxay mudnaayeen in loogu heeso wuxuu sameeyey dadnimo la mid ah midii uu sameeyey kabtanka xulka waddanka Denmark Simon Kjær markii uu dhulka ku dhacay saaxiibkiisa Christian Eriksen bilowgii ciyaaraha koobka qaramada qaaradda Yurub ee 2020 kaasoo ka soconaya magaalooyin dhowr oo ku yaala qaaradda Yurub haddaba waa kuma xiddigan maxay tahay ficilka uu sameeyey ee mudnaa in loogu heeso waraysigii dareenka lahaa oo uu bixiyey ciyaarta kadib iyo duruufta uu ku ciyaaray kulankii Raadsan oo ah geesinimo aysan qof walba awoodin haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato bogeyga magacaygu waa Cabdirashiid Maxamuud Nuur wixii kula habboon oo la joogis iyo ka tagisba waa ku furan tahay waxaan jeclaan lahaa inaad ila saaxiibto way adag tahay inaad garoon gasho xifaaltan samayso kooxdaadana 3 dhibcood la raadiso adigoo qalbiga ku haya in hooyada ay xanuunsan tahay kuna sugayso waa dareen uusan qof walba ku noolaan karin balse taas wuxuu kaga gudbay bandhig fiican iyo inuu kooxdiisa dhibic uga soo dhiciyo kooxda Raadsan oo ka mid ah kooxaha ugu xooggan ee horyaalka dalka hamigana ka leh ku guuleysiga horyaalka Somali Premier League qofka aan ka hadlayo waa Mahad Ibrahim Hilowle daafaca mayalka adag ee kooxda LBB Genyo kaasoo 3 sano ka tirsanaa xulkii maamul goboleedka Jubaland waraysiga uu ciyaarta kadib bixiyay ayaa noqday mid qof walba gilgilay maadaama uu ilmada cishan waayay markii uu soo hadal qaaday xanuunka hooyadiis iyo inuu safar u yahay gobolkii uu ka yimid si uu hooyadiis ugu tago ugu qanacsanahay insha Allah waxaan rajeynayaa kooxdeeda nasiib waxaan u rajeynayaa safar oo wax isoo galay oo banaanka ah gobolkayga aadaya cilad awgeed oo hooyaday aad u xanuunsan oo sariir saaran waxaan kooxdeeda u rajeynayaa iyo hooyadeeda in caafimaad taam inuu Ilaahay siiyo kooxdeeda waxaan u rajeynayaa nasiib waxaan inay helaan dhabato insha Allah waan rajeynayaa hooyada inay dib u soo kacdo insha Allah cilad noocaas ay haysato footballkan qofka bini'aadanka hadduu soo xamilo dhibaatooyin ma ciyaari karo ma usaalna inuu sii wato qaab ciyaareedkiisa insha Allah laakiin wuxuu Ilaahay u qarin ma diidi kari insha Allah hooyadana waxaan rajeynayaa inay caafimaad taam hesho kooxdeena nasiib waxaan u rajeynayaa ciyaartoyda dunida awood uma lahan badanaa marka ay dhibaatooyin qoys iyo xaalado kale soo wajahaan in lagu aamino garoonka maadaama aysan diiradda saari karin ciyaarta balse Mahad wuxuu sameeyey adkaysi oo kooxdiisa iyo jamaahiirtiisa ku caawiyo isagoo murugsan qalbiga daran xoog leh ku haysta waxaan u rajeynayaa inay caafimaad taam hesho hooyo waalidkuna waa waxa ugu weyn ee adduunyada lagu haysto waxaana hubaal ah in Genyo ay weynayso mid ka mid ah xidigaha ugu miisaanka culus marka taas laga soo gudbo Mahad Ibrahim Hilowle oo ay jamaahiirta Genyo u yaqaanaan Ramos wuxuu kulanka Raadsan ee dhacay Arbacadii sameeyay wax cajiib ah waana mid dunida oo dhan ku amaantay Simon Kjær kaas oo u gurmaday saaxiibkiisa Eriksen ciyaarihii furitaanka koobka qaramada Yurub 2020 daawo muuqaalkan yar sida uu kaga falceliyo dhaawaca soo gaaray saaxiibkiisa Xasan Cabdi Xasan oo ka mid ah mashiinada khadka dhexe kuwada ugu fiican ee Genyo sida geesinimada leh oo uu u ciqaabay weeraryahanka Raadsan ee ixtiraami waayay ciyaar wanaaga iyo sida uu durba ugu soo orday dhanka saaxiibkiisa oo uu caawiyo waxay ahayd wax hadalhayn mudan weliba isagoo ku sugan duruufta waalidkiisa ee xanuunsan ayuu haddana u ciyaaray si ay qurux ku jirto in la boombooniyo waxay ka dhalan lahayd marka ay sawir qaadayaasha iyo muuqaal duubayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee garoonka ku sugan ay fahmi lahaayeen macnaha ku dhex jira ficilka uu sameeyey waxaana la heli lahaa caddeemo ay bulshada aan la socon ciyaarta ugu heesi lahaayeen Mahad Ibrahim Hilowle mid ka mid ah daafacyada ugu fiican horyaalka heerka koowaad ee dalka wuxuu noqday geesi aan loo heesin balse xushmadda ay kubadda cagta leedahay iyo qalbiga bulshada kubadda cagta ayuu kasbaday wuxuuna mudan yahay in dhalinyarada ay ku daydaan si loo helo kuwa badan oo ixtiraamka kubadda cagta dhiiranaanta iyo sharafta waxa xirfadlaha looga baahan yahay soo bandhiga waad ku maadsan tahay haddii aad la socotay ilaa dhamaadka waxaan kaaga mahadcelinayaa la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga ka falceli muuqaalkan si ay dad badan noo daawadaan una sheergari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo kale oo intaan ka badan mahadsanid